ama lahow beer 100 hektar ah ama 1 hektar waxaad u baahan tahay inaad ogaatid waxyaabaha saameeya inay mirahaagi soo baxaan oo banaanka yimaadaan iyagoo siman. Videoga marka waxaan uga hadlaynaa waxyaabaha dhibka u keeni kara inaysan mirahaagu aysan gaarin sidii aad rabtay. fadlan ka faa'iideyso. السلام عليكم كسر هذا فيديو كل دين ديار استفهام سومالي أو نقول تلقى لنا إنك في استندك السوماليات مقعي علي باشي فضلا هدي أكو عصبت كنالك سبسكرايب ده بالكنا تابو سيسو كودا في الفيديو كستان ومصوري إنه كنالك ونو قد بي وراها كلا سوماليات سيوا فايديستان وأنا مهسنتين. إنا فهمتيد سيدا سيد كجيمينيشن وسميان أما أصابحان أو يسوق بدلان جيد ير أو عافمات قبا waxay muhiim u tahay hadii aad rabtid dalagyo qiimo leh oo fara badan inaad soo saartid. sababtaas darteed ayaa marka videoskan waxaan u sameynaynaa hadii la yiraahdo ku saabsan seedska iyo seedlingska waxa la yiraahdo geedaha yarka iyo seedska sidii loo soo saari lahaa ayagoo tayo leh. insha Allah taasna markaas waxay noqonaysaa guusha in la gaaro beero waaweyn oo dalagyo kala duwan laga soo saaro. maxaa yeelay bilowga hadduu ka halaabo hadhow wax soo saarkaagii kala dalagii aad ayuu u liidanayaa. waxaana aaminsanahay dhinacan inay tahay dhinaca oo dad badan ka liita oo aad ka muhiimka ah inay awood saaraan. sababtoo dad badan waa u sahlan tahay inay maamulaan geedihii markay soo waaweynaadaan laakiin marar badan waxay dhib keena geedaha yararka sida loo soo saari lahaa. videogan kii ka horeeyay ayaan waxaan uga hadalnay abuurka iyo waxa uu u baahan yahay si uu soo baxo. saddexdan ayuu u baahan yahay ayaan niri abuurku si uu soo baxo cimilo ku habboon oxygen iyo biyo ku habboon. saddexdaas ayuu u baahan yahay laakiin waxa jira marar adoo saddexdaas say tahay u siiyay oo loo yaqaan environmental conditions ay sax yihiin ayaa waxa dhici karta in haddana geedkaaga uu soo bixin. marka video waxaan wada ku saaraynaa inaan ka hadalno waxyaabaha aan saddexdan ahayn oo ku keeni kara in seedkaagi uu soo bixin. waxyaabo badan ayaa u diidi kara inuu seedki si fiican u soo baxo. marka dabcan wax kasta oo u diidi kara in seedki uu si fiican u soo baxo meesha kuma soo qaadanayno laakiin qaar aan isleenahay waa muhiim ayaa ku soo qaadanaynaa. ujeedada marka seedska ay kugu soo baxayaan ma ahan oo kaliya in maaragtay ay soo baxaan oo banaanka ay yimaadaan. ujeedadu intaas kaliya maahan. ujeedada waxaa ka mid ah in iyakiyo oo dhan ay hal mar soo wada baxaan. sababtoo ah markay hal mar ku soo wada baxaan inaad maamusho dalagaagii iyo beertaadii waa sahlan tahay oo ma rabtid beer teel usoo kala baxda oo xilliyo kala duwan soo baxda. sababtoo waraabkii nafaqadii soo gurashadii waxaasoo dhan ayaa qaldamaya haddaysan geedihii hal mar isla soo bixin oo isla socon. laakiin in germinationka ama geedaha soo baxaya markaad seeds abuurto ama beerta weyn ku abuur ama meelaha lagu koriyo ku abuur inaysan qaar soo bixin waa wax dabiici ah oo caadi ah oo meel kasta ka dhacda. sababtoo ah seedyada qaar way fiican yihiin si sahal ayay u soo baxaan qaarna inaysan soo bixin oo ay halaabaan waa wax iska caadi ah. marka taas ma ahan sababta aan uga hadlayno tan. laakiin waxaa jira geeda qaar oo ku liita inay soo baxaan oo laga yaabo half inuu soo baxo mirahoodii. geedaha qaarna intaas ka sii yar ayaa soo baxa qaarna aad ayay u fiican yihiin ilaa 80 ilaa 85 ayay gaaraan. marka seedka adiga abuuraysid ayay ku xiran tahay. haddaa yaanyo abuuraysid haddaa qamadi abuuraysid haddaa galley abuuraysid badanaa seedka aad abuurayso waxay kala leeyihiin germination kala duwan. haddii aad marka soo gadato seeds oo aad dad ka soo gadato oo company aad ka soo gadato inta badan waa ku qoran yahay inta ay rajaynayaan oo ku soo baxayso seedkaas 80% 85% waa ku qoran yihiin. markaas waxaa arkaysaa inuu seed fiican ahaa iyo in kale inta soo baxday 100% ayaa ka arkaysaa hadii la yiraahdo. haddii marka sidaas ku qoreed ay ku soo bixi weyso waxaad marka ogaanaysaa in adiga wax ka qaldan yihiin ama inuu seed ku qaldanaa. waxyaabaha ugu horeeya marka oo dhibaatada u keena beeraleyda markay soo saarayaan waxa weeye meel fog inay mirti geeyaan ama meel aad u sokaysa oo ku habboonayn. marka wrong depth in la isticmaalo haddii aad isticmaalaysid machine ama gacanta aad isticmaalaysid midku rab ha ahaadee inaad meeshii saxda ahaa oo geed kasta uu ku habboon yahay inaad geyso ayaa laga rabaa. geeda xataa inta badan haddii aad soo gadatid waa ku qoran yahay inta depth oo laga rabo inaad geliso mirtaas waa ku qoranta. marka taas fiiri siday taana u raac. marka haddii aad geedka ku abuurtid meel aad u sokaysa oo ciidda korkeeda aad saartid oon ku hooseyn waxaa dhacaysa marka areadaas badanaa biyaha si sahal kuma ceshato hoos ayay aadayaan ama qorraxdii ayaa qaadaysa. marka waxaa dhacaysa geedkii mirti inay ku qalasho meesheedii oo biyo la'aan ay ku dhacdo ama waxaa laga yaabaa in cayaanka ciidda horkeeda maraya ama meesha kore oo ciidda jooga inuu cuno ama uu dhaawac gaarsiiyo cudur uu ku dhaco. marka taas dhibaatadeeda ayay leedahay haddaad ciidda meesha u sarreysa aad saarto.
haddii laakiin sidoo kale aad geysid meel aad u fog waxaa dhacaysa marka geedkii inay ka daahdo soo bixitaankiisii meelaha qaar wadamadan reer galbeedka kale camal waxyaabaha loo diidayo taas dhibaatada u keeni kara waxaa ka mid ah in ciidda hoose ay aad u qabowdahay marka taas ay dhibaato u keeni karto oo germination xumo ay keento ama inay dhacdo dhaawac ama uu dhaawacmo seedkii intuu isku dayayo meeshaas fog intuu ka soo baxayo ilaa uu kor imaanayo ilaa hawl iyo dadaal ku jira uu taas ku dhaawacmo taasna way dhacdaa marka waxyaabo badan ayaa keeni kara labadaba khasaare ayay noqonayaan haddii aadan qiyaastii saxda ahayd oo ku habbooneed aadan ku abuurin seedka hadda meesha haddaa fiirisid waxaa ujeedaa waa baaritaan laga sameeyey Maraykanka oo la tijaabinayay galleyda meesha ku habboon in lagu abuuro waxaa arkaysaa 1.5 inch oo u dhiganta 3.8 centimeters iyo waxaa lagu abuuray 2.5 inch ayaa lagu kala abuuray 4 sano ayaa la isku barbar dhigay 4taas sano waxaa ujeedaa mar kasta waxaa wax soo saarku uu fiicnaa markii laga dhigay 2.5 inch markii laga dhigay godka hoose oo la geliyay ciidda meesha hoose oo lagu doogay markii ay noqotay ayuu wax soo saarku fiicnaa marka haddii aad fiirisid waxaa ujeedaa in marka 2.5 uu ka koriimo badan yahay midka 1.5 ka ah galley ka quality badan oo ka xoog badan ayuu soo saarayaa sababtoo ah geedku meel yara hooseysa haddii uu ka soo baxay awoodda marka hore wuxuu saarayaa inuu xidid fiican uu soo saaro xididkaas marka wuxuu saameynayaa geedka mustaqbalkii meeshuu biyihii iyo nafaqada uu kasoo heli lahaa dabcan Soomaaliya markii aan joogno waxaan leenahay cimilo ka duwan marka debtiga iyo inta ku fog oo la gaarsiiyay dhirarka ah oo la gaarsiiyay oo lagu abuuray Maraykanka oo kale sida tahay uma koobiyay karno annaga ma isticmaali karno qofku marka waa inuu fiiriyaa field conditionkiisa xaaladda beertiisa waxa ka jira nooca ciiddu ay tahay waxyaabo badan ay ku xirantahay marka dabcan studies badan ama baaritaamo badan oo wadanka lagu sameeyay oo gobolada kala duwan lagu sameeyay oo muujinaysa nooca ugu fiican ee la isticmaalo ma jiraan marka waxay tagaysaa in adiga aad tijaabo samayso aad fiiriso kulli hadii aad mishinka beeraha lagu abuuro isticmaalaysid isaga waa sahlanaan lahayd oo waxa sameey lahayd adjustment ayaa ku sameey lahayd inta centimeter arabtina ciidda ku abuurtid dabcan galley iyo qamadi iyo hadaan rabno inaan si fiican u soo saarno mishinada noocaas oo ku qasbanahay isagaana ku qiyaasay inta oo aad gelinaysid dhirarka markaasna waxa uu waaliheed midka ugu fiican ee wax soo saarka ku fiican laakiin maadaama aanan haysan gacantii waa adag tahay in lagu qiyaaso marka waxyaabaha dhibaatooyinka keena oo aan depthiga ama inta godka la geliyo aan hayn waxaa ka mid ah in seedkii loo xareeyay si qalad ah in loo xareeyay haddii marka seedkii si qalad ah loo xareeyay waxaa dhacaysa marka inaysan noqon wax viable ah oo faa'iido leh oo soo baxay inaysan noqon nasiib darro waxaa marka jira in seedsku ay lumiyaan viability-gooda haddii si qalad ah meel loo dhigay tusaale ahaan meel qoyaan ah ama meel aad u kulul haddii lagu hayo waxaa dhacaysa in seedkii dhibaato ay gaarto ha noqoto marka meeshaas inay gurigaaga ahayd ama ha noqoto meelihii laga keenay intii la wado transitka u ahaa dhibaato soo gaartay marka seedskaas waxay keenaysaa inaysan siday tahay aysan u soo bixin marka dadkii soo waday oo keenay oo beeruha ka soo qaaday haddii qorax ku hayeen ama si qalad ay u dhigeen taas waxay keenaysaa marka adii ay ku yimaadaan inaysan adag tahay seedskaas inay noqdaan miro fiican oo awood leh dabcan dadka miraha ka ganacsada awoodda waxay saari doonaan insha Allah inay miraha ay soo iibinayaan cidda ay ka soo iibinayaan iyo meesha ay dhigayaan inay ka taxadaraan mar laakiin waxa dhacda inuu seedku uu old yahay oo aad u weyn yahay sababtoo ah waa muhiim in ogaata in seed kasta uu leeyahay use by date maalin uu ku dhaco inuu leeyahay marka waxa laga yaabaa seedska isticmaalaysid inay yihiin kuwa duq ah oo waxba tarayn because seed kasta wuxuu leeyahay xilli uu ku dhaco oo uu viability-giisa ku lumiyo ka bacdina uu eber noqonayo hadda karootadoo kale waxay ka mid tahay geedaha oo aan xilliga dheer lahayn oo halaaba marka taas waxay waxa weeye inaad isku daydid markii aad sanadkaas abuuranaysidba inaad mid cusub soo gadato saas way tahay karootada xataa 3 sano waa gaari kartaa marka miraha aad soo iibsanaysid oo boxyada ku jira haddii aad soo iibsatid kuwa noocaas oo adii kuwaaga aadan isticmaalin waxaa ku qoran maalinka la isticmaalayo waa ku qoranta inkastoo aysan ahayn taas haddii kama dambaystii ay tahay oo haddii ay maalinkaas ku qorantaa la dhaafo aysan soo baxayn micnaheedu waxa weeye in inta soo bixi doontaa ay ka yar yihiin haddii within date-ka ay yihiin haddii marka adiga aad rabtid inaad mirahaaga dhigatid oo aad meel dhigatid waa inaad hubisaa inaad ku qortid taariikhda aad aruuriso oo meesha aad dhigtay si hadhow haddii aad u soo noqoto aad ogtahay marka la isticmaalo containers iyo meel fiican oo habaysanna waa inaad gelisaa oo u keenaysa in qoyaanna uusan taaban kulayl zaa'idana uusan ku dhicin waxaa jira marka marar kale oo dhaawac uu gaarayo intii ay transitka yihiin ama lagu istaago ama wax culus la saaro taasna dhibaato ayay keentaa marka sida aan sheegnay dhibaatooyin badan ayaa keeni kara in mirahaaga si fiican aysan u soo bixin marka dabcan haddii aad gacanta ku abuuraysid waxaad samayn kartaa inaad extra yar ku darto
kaba soo qaad bayaanyo kala abuuraysaa haddii aad rajaynaysa boqolkiiba 85 miruhu inay kuu soo baxaan boqolkiiba 15 ama 20 ayaa ku daraysaa si inta ka dhiman ay u soo baxaan midda kale waxyaabaha aan videoga hore uga hadalnana waxaa ka mid ah inaad markasta isku daydid ciidda iyo mirta inay si fiican isku taabtaan si ay sahal u noqoto inuu geedkii biyihiina u helo si fiicanna uu soo baxo insha Allah hadhow dabcan qofkan markuu uu mirta saa u dhigo kale hadhow ciidii loogu talagalay ayuu dusha uga shubayaa mararka qaarna waxaa dhacda in mirihiiba la cunayba banaanka markaa ku abuuraysid digirta ha ahaato sunflowerka geedaha ha ahaato miraha waaweyn weliba waxaa badanaa dhacda in la cuni karo mar alaali markii aad ciidda geliso in la cuni karo ama maaysa cuni kara ama shimbira ayaa cuni kara waxay jecel yihiin inay inta maaragtay soo qodaan ay cunaan marka haddii aad meel yar abuuraysid dabcan waxaad samayn kartaa inaad ama mara saartid ama wax netin ah inaad saartid si aad u ogolaatid mirahaagii aad uga ilaalisid shimbirahaas iyo cayaanaadka noocaasa ee la soo baxaya marka marar badan ciladu ma ahan inay siidka halaysnaayeen ee waxa weeye in la cunay oo cayayaan kale uu cunay mirtaadii marar badan waxaa jirta in sul la mariyo marka mirihii aad soo iibsatay ama binki ha ahaato ama kalarka ha ahaato oo la mariyo ujeedada loo marinayana waxaa ka mid ah in aan la cunin mirta markii ciidda la geliyo oo dhaawac la gaarsiin oo cudur lagu ridin inta aysan soo bixin marka dabcan walaalo badan oo isticmaalayana taas waan arkay oo ayagoon gloves gashan ay si toos ah mirihii oo kalarkii leh gacanta la geliyaan marka taas halis weeye waa la iska ilaaliyaa oo gloves la gashadaa mirahaas oo kale markii aad duugaysa haddii gacantaada isticmaalaysid dabcan si toos ah mirahaas suntu marsan yihiin ha u taaban oo wejigaaga ha taaban ilaa aad si fiican isaga dhaqdo marka iska ilaali halis ayaa ka imaan karta beeraha markii aad ku jirtid qofkii kulli beeraha ku jira ayaa yaqaana markasta sidii aad u qorshaysay wax ma noqdaan dhibaatooyin badan ayaa ka hor imaanaya dhibaatooyinkaas marka adaa waxaa laga rabaa inaad si baaritaan habaysan oo caqliyeysan inaad ku baartid waa inaad si dadaala aad ku raadisaa xalkii aad ku heli lahayd dhibaatada ku haysata xalkaas marka waa inaad u raadisaa mid waa inaad ugu raadisaa si aad u xalin lahayd oo aad uga hortegi lahayd inuusan mar dambe kugu dhicin kabacdi insha Allah waxaa hubaal ah inaad guulka gaaraysid oo aad ku baranaysid marka haddii aadan kowdii hore beertii aad abuurtay ama dalagii aad abuurtay ama mirihii aad abuurtay aad ku guuleysan insha Allah isku day mar kale aakhirka insha Allah waa ku guuleysanaysaa waxaan rajaynayaa inaad video ka faa'iidaysateen intaan video kala kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaah iyo beerasho wacan